Assalaamu calaykum. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe dhe. Kadibna furo gambaleelka si ay kuu soo gaaraan barnaamijyada taxanaha ee mar walba soo gelino. In badan oo idin ka mid ah waxa ay barteen maadada fiisikiska. Haddaba intiina taqaana maadadaasi waxay ku dhisan tahay tijaabooyin iyo faham dhanka sayniska ah. Maadadani ayaa ah maadada saynisyahano fara badan ay wax ka qoreen. Haddaba maanta shakhsiga aan doonayna inaan ka sheekayno waa kuma. Saameyn intee leeg ayuuna ku leeyahay dunida. Isaac Newton waa saynisyahankii ugu saameynta badnaa dunida, balse waxaa muhiim ah inaad ogaato sababta uu halkaasi ku gaadhay isla markaana uu kaga hormaray saynisyahanadii la da'da ahaa isla markaana lana deegaanka ahaa. Buuggani waxaa qoray qoraaga weyn ee reer Mareykan Michael Hart, wuxuuna cinwaan uga dhigay 100 ruux ee ugu saameynta badnaa taariikhda dunida. Isaac Newton, saynisyahankii weynaa uguna saameynta badnaa abid, wuxuu ku dhashay magaalada Woolsthorpe ee dalka England, wuxuuna dhashay maalinta ciidda Masiixiga ee loo yaqaan Christmas-ka sanadku markuu ahaa 1642 oo ahayd isla sanadkii uu geeriyooday saynisyahankii Galileo. Sida Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo kale, Isaac waxa uu ahaa mid dhashay kadib geerida aabihii. Carruurnimadiisii wuxuu muujiyay karti makaanignimo oo tiro badan, waxa uuna xariif ku ahaa gacmihiisa. Inkasta uu ahaa canug dhalaalaya oo maskaxdiisuna furan tahay, haddana ma ahayn mid dareen aad u badan siin jiray waxbarashadiisa iskuulka. Markuu gaaray da'da dhalinyaranimada, hooyadii ayaa ka bixisay iskuulka isla markaana u wareejisay baadiyaha si uu u noqdo mid ku wanaagsan dhinaca beerashada. Nasiib wanaag waxaa lagu qanciyay hibadiisu inay ku jirto meel kale oo aan beerashada ahayn. Markuu 18 jirsaday wuxuu galay jaamacadda Cambridge. Halkaasi wuxuu si dhaqso leh ugu fahmay wixii lagu magacaabi jiray markaasi cilmiga sayniska iyo xisaabta, asagoona waqti aan sidaasi uga sii fogeyn u sii tallaabay cilmi baadhistiisii madaxa bannaanayd. Intii u dhaxaysay da'diisii 21 ilaa 27 jirka, wuxuu salka u dhigay aasaaska aragtiyaha sayniska ee sida isxigay dunida dib u soo nooleeyay. Bartamaha qarnigii 17aad waxa ay ahayd waqtigii loogu magacdaray waqtigii qamiirka sayniska. Hindisaadii aaladda telescope ku dhawaad bilowgii qarnigii ayaa si weyn u soo nooleysay barashada cilmiga xidigiska. Falsafaagii reer Ingiriis Francis Bacon iyo falsafaagii kale ee reer Francis René Descartes ayaa ka dooday in saynisyahanada ku nool Yurub oo idil ay joojiyaan ku tiirsanaanta awooddii Aristotle iyo in ay ayaga tijaabooyin iyo indhaindhayn u gaar ah samaystaan. Waxay sheegeen Bacon iyo Descartes waxa horey u dhaqangeliyay saynisyahankii Galileo fariintiisa ku salaysneed cilmiga xidigiska isagoo isticmaalaya aaladii cusbeed ee la soo hindisay telescope ayaa bedeshay dunida iyo sidoo kale barashada cilmiga xidigiska. Sidoo kale tijaabooyinkiisa makaanignimada waxay aasaas u noqdeen waxa maanta aan ugu yeerno Newton's first law of motion ama sharcigii ugu horreeyay ee Newton ee dhaqdhaqaaqa. Saynisyahano kale oo waaweyn sida William Harvey oo shaaca ka qaaday wareegga dhiigga iyo Johannes Kepler oo isna shaaca ka qaaday sharciga qeexaya dhaqdhaqaaqa meelayaasha ku dhow qorraxda ayaa warbixino aasaasi ah u keenay bulshada sayniska. Ilaa iyo weli sayniska nadiifka waxa uu ahaa cayaar maskaxeed. Ilaa iyo iminkana wax caddayn ah looma hayo marka loo isticmaalay teknoolajiyadda in saynisku uu bedeli karo nolosha aadanaha sidoo Francis Bacon ba horey ugu dooday. Inkastoo Copernicus iyo Galileo ay dhinac isaga tuureen waxyaabo ka mid ah khuraafaadkii sayniskii hore ayna ka qayb qaateen faham dheeri ah oo dunida la fahmo, haddana lama diyaarin wax shuruuc ah oo daabacan taasoo u bedeli kartay waxyaabaha la isu soo aruuriyay oo loo arkayay in ay yihiin xaqiiqooyin aan iswaafaqsanayn, qormooyin iyo aragtiyo midaysan oo loo adeegsado saadaalinta sayniska. Wuxuu ahaa Isaac Newton ninkii keenay aragtiyahaasi midaysan dejiyayna habka casriga ah ee weligii uu sayniska ku socday. Newton wuxuu ahaa mid ka cagajiida inuu soo baahiyo ama soo bandhigo natiijooyinkiisa, inkastoo uu soo diyaariyay sababaha aasaaska u ah fikirkiisa sanadkii 1669. In badan oo ka mid ah howlihiisii lama soo baahin ilaa iyo mar dambe. Waxyaabihii ugu horreeyay ee la soo baahiyay isla markaana ka mid ah shaqadiisii waxay ahayd shaqadiisii gilgishay caalamka oo dhan kana hadlaysay dabeecadda iftiinka ama waxa loo yaqaan nature of light. Tijaabooyin isku xigxigay oo si taxaddar leh u sameeyay ayaa wuxuu Newton ku ogaaday in light-ka caadiga uu yahay dhammaan kalarrada qaansar roobaadka oo la isku qasay. Sidoo kale wuxuu sameeyay falanqayn taxaddar leh oo ku aadan shuruucda loo yaqaan laws of reflection and refraction of light
isagoona isticmaalaya shuruucdan ayuu sanadku markuu ahaa 1668 wuxuu sameeyey teleskoobkii ugu horreeyay ee sameeya milicsiga laydhka, kaasoo ahaa nooca teleskoobka maanta ay inta badan dunida u isticmaasho cilmiga xidigiska. dhammaan howlahan uu shaaca ka qaaday una ugu weynaa teleskoobkii iyo kuwo kale uu sameeyey ayuu Newton kusoo horbandhigay The British Royal Society markuu ahaa 29 jir. ka guulgaaridii uu Newton ka guulgaaray cilmiga dabeecadda laydhka oo kaliya ayuu kaalin hore kaga fadhiisan lahaa buugani. sidoo kale guulihii uu ka gaadhay Newton dhinaca xisaabta ayaa waxaa ka mid ahaa hindisaadiisii mawduuca ama topiga maanta xisaabta fasalka afraad ee dugsiga sare lagu bartay iskuulada dunida qaar, kaasoo ah topiga loo yaqaan calculus. in badan oo maanta saynisku adduunka ku dhaqmo ah ayaa looga dayday Newton, waxaana ka mid ah isla mawduucan xisaabta ka midka ah oo maanta sayniska la'aantiisa uusan dhaqaaqeen. sidoo kale waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee Newton uu soo hindisay waxaa ka mid ahaa makaanignimada, waana cilmiga sida ay walxaha u socdaan. ninka lagu magacaabo Galileo ayaa soo saaray sharcigii koowaad ee dhaqdhaqaaqa, kaasoo qeexaya socdaalka walxaha haddii aanan loo isticmaalin awood bannaanka ah. marka la eego lana sameeyo dabcan dhammaan walxaha waxaa saameynaya awood bannaanka ah, balse su'aasha ugu muhiimsan ee cilmiga makaanignimada ayaa waxay tahay sidee bay walxaha ugu dhaqdhaqaaqaan xaaladda noocaasi ah. su'aashani waxaa xaliyay Newton kadib markuu soo saaray sharcigii koowaad ee dhaqdhaqaaqa, kaasoo xaqiiqdii loo qaadan karo sharciga ugu weyn ee aasaaskana u ah barashada cilmiga hormaray ee fiisikiska. shuruucdii Newton waxaa loo isticmaali karaa loona isticmaalay in badan oo ka mid ah sayniska iyo injineeriyadda waqtiguu isagu noolaa. inta badan shuruucdiisa waxaa aad loo isticmaali jiray sharcigii iyo aaladii cilmiga xidigiska. sidoo kale Isaac waxa uu soo baahiyey sanadkii 1687 shaqadiisii ahayd shuruucda xisaabta ee falsafada dabiiciga ah, taasoo uu ku soo bandhigay sharciga gravitationka iyo kan dhaqdhaqaaqa ama motionka. iminka waa laga yaabaa inaad xaqiiqsato inuu Newton ahaa saynisyahankii ugu weynaa uguna saameynta badnaa taariikhda dunida aan maanta ku noolnahay. haddana waxaa laga yaabaa in aad isweydiiso maxay tahay sababta looga kormariyay siyaasiyiin aad u weyn isla markaana aad caan u ahaa sida Alexander the Great ama George Washington, iyo sidoo kale sababta looga hormariyay hogaamiyaal diineed iyo nebiyo uu Alle soo diray sida Nabi Ciise calayhi salaam iyo hogaamiye diineedka ay Hindidu aaminsan tahay ee loogu magacaabi jiray Gautama Buddha, isla markaana soo hindisay diinta Buddhismka. aragtidayda shakhsiyeed, inkastoo isbeddelka siyaasadda ay aad muhiim u tahay, haddana waa in si cadaalad ah loo yiraahdo in badan oo dadka ka mid ah waxay u noolaayeen si la mid ah siday 500 oo sano kadib geeridii Alexander ay u noolaayeen. marka saameynta sayniska ma bedelin oo kaliya teknolojiyadda iyo dhaqaalaha, ee waxa uu si dhammaystiran u bedelay siyaasadda, diinta, fakarka, fanka iyo sidoo kale falsafadda. wax yar oo ka mid ah nolosha aadanaha ayuusan bedelin sayniska, balse taas sababteedu waxay tahay in badan oo ka mid ah saynisyahanada iyo maalgashadayaasha ayaa la rabay in ay buugani meel sare ka gaadhaan. Newton ma ahayn oo kaliya saynisyahankii ugu maskaxda furnaa caalamka, balse waxaa kaloo uu ahaa kan ugu saameynta badan caalamka. Isaac Newton waxa uu geeriyooday sanadkii 1727 waxaana lagu aasay Westminster Abbey, wuxuuna ahaa saynisyahankii ugu horreeyay ee lagu abaalmarshay sharafta noocaasi oo kale ah. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkani like siina share gare. intaynu barnaamijkiisa xiga ku kulmi doono oo ah qaybta saddexaad ee buuggani, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaano Allah.